taas baa daliil u ah anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanada saxiixay mooshinka waxaan mooshinka saxiixay 2 bilood iyo bar ka hor intaan baarlamaanku gelin risaaska baarlamaanku intuusan fasaxa qaadan ayaan saxiixay waxaan u saxiixnayna waxay ahayd inta iyada saxiixday markaas cara aan ka qabno madashii oo mar labaad soo noqotay 2018 maalinta arbacada ahayd waa fadhiyay hadalkii wax badan ku noqon maayo laakiin ilaahay hortiis barqaati waxaan ka ahay saddexda gudoomiye markay soo noqdeen oo shirkoodii soo dhameysteen ayaga oo raalli ah oo isku raacsan oo marka ugu horeysa uu gudoomiyuhu hadalka bilaabay gudoomiye Jawaari ka bacdina lagu wareejiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Sheekh Muuday in ay ku heshiiyeen heshiisiyo waa ku yimaadeen inaan kooramkii loogu talagalay mooshinka dhammaystirnayn sidaa darteed mooshinkaasi inuu buray markhaati ilaahay baan ka ahay min muslimaan ahay shantiisa waqti tukada shahaado suur ma galahayo waxaan rabaa inaan idiin sheego oo ku celinayaa mar kale waa dhammaaday waqtigii qof jacaylka iyo qabiil jacaylku waxaa la gaaray waqtigii qaran jacaylka aragnay dhibaatada uu noo geystay qof jacaylka iyo qaran jacaylku dhibaatada uu noo geystay waa aragnay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii wax ka saxiixay mooshinka gudoomiye Jawaari 2 bilood iyo bar ka hor baarlamaanka inta la fasaxin anoo aan cidina igu khasbin bimaxd iraadati aqligayga qaba sababtuna wax kale ma ahayn waxaan ka xanaaqay saaxiibadayda mooshinkan saxiixayna intooda badan ka xanaaqeen shirkii halkan lagu qabtay oo gudoomiyaasha madaxweynayaasha gobolada iyo dawladda dhexe halkan ku qabatay oo lagu soo saaray go'aamo ka xayuubinaya xildhibaanada ama golaha shacabka ka xayuubinaya xuquuqdiisa dastuuriga ah oo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed u hayo taas baa ugu kaliftay waxa la soo gaaray arrintii DP World maalintii aanu go'aanka ka gaaray shirkadii DP World ayaa waxa soo baxday dardargelin mooshinkii isaga ahaa markaan u dhaqagalayna waxaan ogaaday in la diidan yahay oo dawladda ama xukuumadda qaar ka mid ah ay diidan yihiin in go'aankaas baarlamaanku ka gaaro waxaan ka xanaaqnay oo aanu dib uga noqonnay mooshinkii aan ka saxiixnay annagoo 16 ah xildhibaan gudoomiye Jawaari waxaan u aragnay weerar lagu soo qaaday baarlamaanka Soomaaliyeed oo hay'ad kale ku soo qaaday waxaan u aragnay inaysan arrintu ahayn arrin Jawaari ay tahay arrin baarlamaanka Soomaaliyeed lagaga xayuubinayo awoodiisa dastuuriga uu leeyahay waxaan u aragnay rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed arrin ka soo horjeeda oo macnaheedu yahay shacbiga Soomaaliyeed oo doonayay hantidiisa inuu ka ilaashado dadka boobka ugu yimid sidaas awgeed baan uga noqonnay nasiib daro wali hay'adii iyada ahayd weerar bay baarlamaanka ku haysaa waxaanu doonaynaa annagu xildhibaanana asaaska dawladda jamhuuriyadda labaad ee Soomaaliya waa baarlamaanka dawladdaani waa dawlad baarlamaaniga weeye dawlad shacbigeedu baarlamaanka ay siiyeen awoodoodii weeye dawlad shacbigu toos u doorto madaxweynaha ra'iisul wasaare maahan haddii baarlamaanka lagu ciyaaro dawladnimadii Soomaaliyeed oo dhan baa lagu ciyaaray ogaada oo carta ka soo bilaabatay oo hadda 18 sano maraysa qaan gaartay ma yeelayno mana aqbalayno in la kala qaybiyo in la kala laaluusho annagu hal doon baan saaranahay doonta shacbiga Soomaaliyeed baan u saaranahay xukuumadda iyo dawladda jirta annaga dhalay annaga saxayna haday khaldanto annaga ku amaanayna markay wax samayso wanaagsan oo shacbiga Soomaaliyeed raali ka yahay waxaan codsanayaa hay'ad inaysan ku soo duulana in faraha la kala baxo waxaan kaloo codsanayaa oo ku raacaya xildhibaan Sacdiyo abiilkii ama
dhawaaqii ay madaxweynaha Soomaaliyeed ugu dhawaaqday arrintan inuu soo dhaxgalo isaga odayga reerka ah asaga laga rabaa hay'adaha waana shaqada uu leeyahay weeye hay-aduhu markay sidaas oo kale isu qabsadaan si dastuuriya inuu u soo dhaxgalo si odaynimo inuu u soo dhaxgalo si Soomaalinimo inuu u soo dhaxgalo joojiyo heshiisiyo waxaan diyaar u nahay inaanu xasilooni ku soo celino awalna anagu xasilooni darrada ma aanan sameeyna weerar baan la ku soo qaaday hay-adaas haddii la soo weeraro shacbiga Soomaaliyeed baa la weeraray waxaa la weeraray dowladnimada Soomaaliyeed waxaa la weeraray dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa in laga daayaa baarlamaanka kala jabinta madaxweynuhu waana maqlaysaa shaqadaada qabso ilaa hawsha tan waa in dib loo dhigaa oo la dejiyaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin